وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka koowaad walaalayaal waxaa mahadsan oo mahad maanta u sugnaatay Rabbiga subhanahu wa ta'ala inuu soo gaarsiiyay maalinkan fadliga iyo qiimaha badan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa amaashii aan soo qodanaynay bishan Ramadaan ee u dambeysay iyo bilihii horeba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga aqbalo. dadweynaha reer Qowr Bayax dal iyo dibadba waxaan leeyahay ciidan ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal. ciido badan oo dhammaan ku farxad iyo raynrayn ku ciida iyo horumar wanaagsan oo diineed iyo maxaa ku raadiyay Allah inaga dhigo. intaa kadib waxaan rabaa halkan inaan yar ka soo jeediyo warbixintii jaamaca Qowr Bayax oo hadda ciidan ay tahay ciidii maxaan ku leeyahay sanadkii saddexaad oo soo dhisan iyagoo bilowday. maanta waxaa iyagoo saddex sano inoogu buuxda isaga dhismihiisa iyo bilowgiisa iyo dumintiisana way ka dambeysay. wuxuu loo bilowday si rasmi ah dhismihiisa u bilowday bishii toddobaad oo u bilowday 22-keedii. insha Allah ta'ala waa dareemaysaan dhismaha masaajidka baan ku bilowday bilaa inaga xiga. waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan oo qurux badan mustaqbalka inoogu dhammaado. inta haddaan masaajidka u galo masaajidku sababtiinba inuu dhaqaaleeyo oo kala duwan. ilaha dhaqaale waxaa ka mid ah oo u weyn oo hormuud u ah waayidaa. waxaa kaloo ku jira qurbajoogteenna oo iyagu iidiyo ilaanba iyaguna soo dira. waxaa kaloo ka mid ah dumarka. marka waxaan rabaa inaan idiin sheego si guud ciidii Arafo ee ka dambeeyay wixii gacantayda soo galay. waxaa gacantayda soo galay 9,068,472 bir. lacagtaas waa 9,068,472 riyaal weeye. waa lacagta gacantayda soo gashay. waxaa kaloo ku xujisiini meelaha ay ka timid lacagtaasi 460,600 bir kaash ahaan bay ku timid ciidii Arafo. oo waxa weeyaan lacagihii la isku qoray bay ahayd yaryarka weliba u badnaa. waxaa kaloo jira 1,320,000 daaqad ahaan bay ku yimaadeen. taasina waxay u dhigantaa 44 daaqadood bay u dhigantaa. waxaa laynoo yeewahay waagii 64 daaqadood meelaha ayaanu buugtii waraaqii ka helnay. 64kii daaqadood horta guud ahaan daaqadaha masaajidku waxa weeye 132 weeye. maalinkii ciidda waxaan yeewoonay 64 baanu waraaqii ka helnay. 8 ka mid way isbedeleen oo dadku lacag yaryar iyo waxaas heegaana waxa weeye si qalad ay u qorantay la yiri. waxa weeye kuwana hadda insha Allah ta'ala waxaan suugaynaa inay soo gaaraan oo weli way maqan yihiin oo dhimale oo waxa weeyaan waa dadkii way ballan qaadeen insha Allah way soo gaarsiinayaan. marka xaasil waxa soo xarooday waa 44ka ayaa soo u dhigma 1,320,000. 600 oo kun iyaguna albaab ahaan bay u yimaadeen oo u dhigantay iyaguna 6 albaab. waxaa kaloo jiray oo dumarku wareejiyeen khayr Allah siiyo Allah barakeeyo 2,350,000 bay dumarku loo wareejiyeen muddada ciidii ka dambeysay. dumarku waxay wareejiyeen 2,350,000 oo bir bay wareejiyeen oo ah lacagtii suuqa ay ka gurayeen yaryarayd ee maaragtay qaniislaha ahayd. waxaa kaloo jira oo in dhaqaalaha oo masaajidka lacag ka soo gashaa Maxamed Olaad oo waqtigiina oo adeegyada masaajidka guro 4 maalmood oo kamid ah jaamaca ayuu keenaa. waxaan isaga uga soo bilownay maadaama wixiisu bilow yahay ciidan Arafo ciidan soon maanta aan joogno ciidul fidri wixii ka dambeeyay. marka ciid ilaa ciid wuxuu soo ururiyay 1,4,650 baa kala wareegay. waa Maxamed Olaad waa adeegaha masaajidda waan ku celinayaa waa 1,4,650,000 waxay masaajidka uga soo xarootay adeega Maxamed Olaad ood garanaysaan oo waxa weeyaan gura meelay masaajidda maaragtay u gura lacagta uu qaadana ay tahay inta ugu badan 99%
toban riyaal waxaana codsanaynaa lacagta tobanka in looga horkordhiyo oo hadda wixii ka dambeeya waad aragtaan meel fiican bay idiin gashay waa 1 milyan oo idiin gashay masaajidka iyo dheeraad muddada sanadka meelo badan bay ku baxdaa maqaayado badan baan kaga kacnaa lacago ka waaweyn insha allah waxaan rajaynayaa inaad u yar u beerinaysaanoo 20 riyaal iyo 30 iyo 50 inaad meelaha insha allah uga dhigi doontaan waxaa kaloo iyana ila dhaqaale hadda masaajidka u noqday oo lacag u soo xareeya shaqaalaha maamulka magaalada Qabri Bayax shaqaalaha maamulka magaalada Qabri Bayax sanadkii tagay 2023 bishii u dambeysay markii waxa weeye culimadu codsi ay u geysay shir loogu hayay maamulka magaalada si fiican bay u aqbaleen lacagay jaraan 4 bilood bay hadda marayaan 4 bilood lacagtan maamulka magaalada uu soo xareeyay waxa weeyaan 411 kun oo bir weeye 411 kun oo bir weeye oo 4 bilooda waxaa kaloo iyana sidoo kale u soo xareeya oo in shaqaalaha degmada Qabri Bayax oo isla goobta iyada oo shaqaaluhu iyo isku duuban iyaguna hawsha ku guddoonsaday oo ku qaatay inay lacag jaraan maadaama laba maamul ay kala yihiin xisaabahoodii qolo walba dhinaceeda aan ugu raray magacoodana waan uga dhignay lacagta shaqaalaha degmadu waxa weeye 3 bilood 4 bilood 283 ku weeye 283 ku weeyaan waxaa kaloo rabaa halkan inaan in yar idinka sheego lacagaha duuban ee Maraykan inooga yimid ama 5 kuna ama 7 kuna ama 8 kuna ee wada socday wixii wada socday doolarka wixii wada socday doolarka waxa weeyaan 20 kun wuxuu isku noqday markaan isu geeynay 20 kun 350 doolar bay noqotay 20 kun 350 doolar waa xisaabta iyadoo isku duuban Maraykan inooga timid waa mar 5 mar 7 mar 8 iyo wax yara lacagtaasi waxay ku sarifantay 2 milyan 258 kun 646 bir bay ku sarifantay waxaa kaloo halkan waa inaan idinka sheego lacagihii qasnada masaajidka sida tooska ugu soo dhacayay ama qudujooga ha ahaato ama qaranjoogteena ha ahaato ee toos masaajidka loo keenayay taasina waxay noqotay 381 kun 576 bir bay noqotay idinkoo raalliya waxaan rabaa inaan yar dul joogsado mar labaad lacagtaasi iyo meelihii ay martay lacagta waaweyn ee si duuban u baxday waa 8 milyan 347 waa iib waaweyn iyo gacan waaweyn iibka koowaad waxa weeyaan baasha la yidhaha jabsinta weeye waa 886 kun 75 bir baanu ku iibinay waxayna u dhigantaa 2645 kiis bay u dhigantaa waxaa kaloo lacagaha waaweyn ka mid kuwaartiiskan aragteen ee dusha korona mariyey oo hadda gacanta ugu dambeysay waxaa isagana ku baxday oo la siinay 1 milyan 367 kun 1 milyan 367 kun oo u dhiganta 800 oo baaldi waxaa kaloo daaqadaha ku bixinay 1 milyan iyo 100 kun baan iyana daaqadahaan u shubnay oo carbuunaana looga hayaa waa 1 milyan iyo 100 kun oo u dhiganta qiimaha daaqadaha ayaan ku helnay 66 daaqadood waxaa kaloo iibka u yar ee soo qaadanaya 321 kun waa waxyaabihii iibka ahaa ee hooseeyay ee soo qaadanay wixii yaryarka waxaan isnidhi maadaama goobtu tahay goob maaragtay cibaado iyo inaan sii dheeraynin waan ka nimid waxayna u dhigantaa 140 mitir oo waxa weeye marmarka daaqadaha la saarayay marmarka daaqadaha saaran waxaa ku baxay 321 kun waxaa kaloo xusid mudan oo 900 oo kiish oo sibir ayaan iibinay intii arrinta ka dambeysay taasoo lacagteedu tahay 676 kun iyo 800 waxa weeye 676 kun iyo 800 oo u dhiganta 900 oo kiish waxaan rabaa hadda halkan inaan gacan yar idinka sheego gacanta jabsinta fareemka masaajka lagu qurxiyey iyo kuwaartiiska saddexdaa shay weeye waa fareemka jabsinta 2645 ahayd
سديد بقول باندين يفرن كمساج كله وقولي بعنتين وحيسون نقطي أو كاري عايد هل مليون صدق بقول يتدوات تكون سيال بقول كوني سديد تنبر بس نقطي هل مليون صدق بقول يتدوات تكون سيال بقول كوني سديد تنبر بس نقطي وهكذا الروايات كنا نكشفه سير كايسة فينيش ربنا وحيسنا بعرهان بشيء للبقول شني سديد تكون للبقول أدر يوم كي عادي مساجدك يسوون هو النقلين هل مليون أفر بقول لغن يلبكم للبقول يسديد تنبر غير كما كان سوق إن يسوون هو النقلين أفر بقول تدوات يتدوكل يسديد بقول لعتاسي ومالي وويناء لعتي صاحرته سيالك مليون أي مرتي وحيابيه يرير كها وانضمين وان كتجني مركو حلا هاي وكتب الجوينية dadka sagaalka milyan soo bixiyay ee ganacsatada maamulka magaalada maxaan ku raad dhalinyarteena ee shaqaalaha magaalada ee shaqaalaha degmada ee qurba joogteena qiimaha badan ee masaajidkaas laga xil saartaa guud ahaan ee dumarka qaaliga ee soo ururiya waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqa maqbuula oo uga dhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta uu kuga hijaabo rabbi subxaanahu wa tacaala jannada uu ku geeyo إلهنا وحن كبرنا إن عمرنا إلى مالكنا إلى عبادنا ودمان أنت وكبركيو وحاكرون أنت رأسنا يا الله مساجد وكاس مريا بذلك نهاد بوفي عيني إن شاء الله تعالى وحنجينا وقت عند غير المساجد ونمسرنا أنت أنا نمسرنا أنت ساكي وضحيا وأنا ما سنتي بقولك السلام عليكم